ciidanka halyeeyada Jubbaland gaar ahaan guutada labaad ee ciidanka daraawiishta uu hogaamiyo gaashaanle sare Maxamed Cabdi Ciilmooge ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka Mido iyo Bibi ee dhulka hawdka ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalkan oo si xeel dheer loo qorsheeyay ayaa ujeedkiisa ahaa xaqiijinta amniga guud ee deegaanadaasi, waxaana lagu guuleystay in laga hortago khatar kasta oo amni darro ay keeni karta inay falal argagixisnimo ay ka geystaan deegaanadaasi maleeshiyaadka argagixisada. Inta uu socday howlgalkan ayay ciidamada daraawiishta waxay ku guuleysteen inay burburiyaan fariisimihii argagixisada ay ku lahaayeen hawdka gobolka Jubbada Hoose. Gaashaanle sare Ciilmooge oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay howlgallada sii socon doonaan ilaa laga xaqiijinayo dhammaan deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha nabadiidka ee ugu dambeyn taliyaha ayaa wuxuu xusay in iskaashiga buuxa ee u dhexeeya ciidamada iyo shacabka deegaanka ay fududeysay helidda xogaha muhiimka ee horseeday guulaha laga gaaray howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka argagixisada. Ciidamada daraawiishta Jubbaland gaar ahaan guutada labaad ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay inta u dhexeysa Janaax Cabdalla iyo Afmadow